mooshinkii iyo xilka qaadistii loo ballansanaa magaalada Berbera gaar ahaan dawladda hoose ee duqa caasimadaas Cabdishakuur Cidin oo dib loo dhigay wasiirada arrinta ka shaqeeyay iyo dadaalkoodii oo midho dhalay ugu dambeyn dib u dhigistan iyo muddada ay noqonayso ama si qaadanayso dib u dhigista xilka qaadista Cabdishakuur Cidin barnaamijka ayaynu ku soo qaadan doonaa inta aynu xog ka helay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Somaliland Ali Xaamud Jibriil oo dhaliilay habkii guurtida xilka ay iskugu wareejiyeen labada mas'uul ee midina ka tagay midina qaatay sida oo kalena sheegay tabashada awdal inay tani si weyn u soo kicinaysa ladkeedana uu muujinayso maalinta beriya waxaa loo ballansanaa mooshin xilka qaadisa oo maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Cidin 8 mudane oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa keenay dacwad iyo waliba markan mooshin ka dhana maayirka magaalada Berbera oo xilka qaadistiisa ay gudbiyeen wasiirka dawladaha hoose iyo magaalooyinka Xasan Macalin haddaba taniya markii ay soo baxday warbaahintana ay si adag uga hadleen 8 mudane oo sheegay Britoola in lagu kala bixi doono kursiga golaha deegaanka inkastoo iyaga laftigooda u muuqdeen laba group oo mid kastaba doonaya inuu shakhsi ama se mudane gaari hogaamiyo haddana waxa doonistooda ay ka sinaayeen in kursiga iyo wambarka la weydaariyo duqa caasimada Berbera Cabdishakuur Cidin oo ay warkayeen xilka qaadistiisa iyo wambarka in la dhaafiyo inay tahay tallaabo mudan oo muhiim ah xilligan ugu dambeyn wasiirka xanaanada xoolaha iyo waliba wasiirka duulistii hawada wasiir Shacayb iyo wasiir Fuaad oo deegaan ahaan ka soo jeeda deegaanka markan uu ka soo jeedo Cidin iyo sida oo kale rag kale ee doonayay kursiga inay ka riixdaanba ayaa dadaal adag ku bixiyay sidii loo heli lahaa xal waara iyo waliba sidii loo heli lahaa xasilooni siyaasadeed oo cagaha loo saaro degmada Berbera Cabdishakuur Cidin geeskiisana waxa ay markan ka keenay damaanad qaad rasmi ah oo muujinaya inuu si dhab ah uga qaban doono qodobada lagu soo eedeeyay ay qayb ka tahay leerka Berbera iyo inuu qayb ka yahay ganacsiyo si weyn u dhaawacaya bulshada reer Berbera oo markan laf dhuun gashay ku noqday haddii ay noqon lahayd warshada leerka biyaha iyo sida oo kale adeegyo asaasi ah oo loo baahnaa inuu fudaydiyo maadaama duqa caasimada yahay inuu qayb ka noqdo haddaba si cad looma sheegin qodobadaas iyo sida uu xalinayo balse waxa la sheegay oo ay markan wasiiradu ka howlgaleen si loo helo xasilooni siyaasadeed buuqna markan aan cagaha ula gelin xukuumadda dhexe ee iyagu ka tirsan yihiin deegaan ahaana maadaama labada wasiirba ka soo jeedaan deegaanka saddexda nin ee kursiga kala riixanaya Cabdishakuur Cidin dable iyo sida oo kale Cabdirashiid Ukur oo markan isku arkaya mid waliba inuu ku haboon yahay qabashada kadib Cidin dabadii labada nin ee kalena doonistoodu ay cadayd ugu dambeyn waxa dib loo dhigay mooshinkii ka dhanka ahaa markan maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Cidin waxaana loo ballamay 30 cisho kadib 30 cisho ayaa la isla eegayaa arrimuhu sida ay noqonayaan iyo waliba dadaalada loo baahan yahay codsiga labada wasiir iyo dadaalkoodii maanta waxa uu noqday inuu keeno 30 cisho oo dambe in Cabdishakuur Cidin kursiga ku sii nagaado isaguna uu ballan qaaday 30 cisho inuu siyaasadda gudaha ee golaha deegaanka wax ka bedeli doono sida oo kalena uu sameyn doono kasbasho dhameystiran oo mudanayaasha golaha deegaanka iyo bulshada guud ahaan arrimaha leerka iyo waxyaabaha ay cabashadu ka taagan tahay xilligan dhaliisha looga dhigayana uu si rasmi ah u xalin doono lama oga 30 cisho kadib markan inay la kici doonto seeftu mar kale Cabdishakuur Cidin iyo inuu sidaa kaga badbaaday guud ahaan mooshinkii ka dhanka ahaa kursiga iyo xilka uu fadhiyay 14 sano ee la soo dhaafay waliba ay u dheer yihiin biluhu siina rajeynayay inuu 2 sano ee soo socday ee la kordhiyay uu sii fadhin doono maadaama muddo kordhin loo sameeyay muddo xileedkiisana 8 sano hore iyo 5 sano oo hadda dhameystay ayaa ka dhigaya Cabdishakuur Cidin inuu yahay mudanihii ama saduqi caasimada gobolka saaxil ee Berbera ee ugu muddada dheeraa xil ahaan marka la eego waliba cod ku yimaada siyaasad ahaana inta badan waxa uu ahaa mid ku tiirsan xusbi muxaafada maadaama uu bilowgii hore soo bixitaankiisa afka saaray dhabadii xusbiga kulmiye oo ahaa xusbi muxaafida muddo 14 sano aan ka soo arrimiyay gudaha Somaliland gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Somaliland Ali Xaamud Jibriil ayaa ka falceliyay doorashadii iyo hanaankii iyo habkii loo maray xilka gudoomiyaha golaha guurtida waxa uu saluug weyn ka muujiyay markan hanaanka ay xilka iskugu wareejiyeen gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub geeska kale qaabka looga ololeeyay gudaha iyo waliba xildhibaanada dhexdooda ayuu ku tilmaamay mid markan muujinaysay in all amase jifo gaara markan loo cumaamaday golihiina loo xidhay hal jifo tanina ay suurad xumeynayso Somaliland sida oo kale saamiga reer awdal doonayaan
iyo muuqashadooda siyaasiga aanay marnaba qalcin karin tallaabooyinkii ka dhacay golaha guurtida. Waxa uu sheegay muddo in loo soo carbinayay ninka hadda lagu wareejiyey iyadoo qaab reeraysan dabada ay uga taagnaayeen siyaasiyiin kaadiriin waaweyn, ganacsato iyo weliba dadyow ka soo jeeda isla deegaanka iyo oosha. Waxa uu sheegay reer Awdal iyo Somalilan wax wada lahaantoodu inay tahay mid ku dhisan saami iyo awood qaybsi rasmiya oo loo waajaho si dhaba si loo helo Somalilan qurux badan. Tallaabooyinka hadda la qaadayaa si aanay farxad gelinayn mas-uuliyiinta gobolka ku metelaya Somalilan iyo bulshada gobolka Awdal. Gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Somalilan Cali Xamuud Jibriil waxa uu dhaliil weyn dusha ka huwiyey xildhibaanadii iyo mudanayaashii golaha guurtida ee uu ololeeyay qaabka reeraysan sida uu hadalka u dhigay. Gudoomiyihii xilka wareejiyey oo uu sheegay si jifaysan inuu wareejiyey iyo gudoomiyaha la wareegay oo uu sheegay si jifaysan inuu la wareegay. Arrimahanna waxa uu sheegay inay yihiin kuwo laalaya rajada laga qabo in bulshada Somalilan isku laabcadnaato iyo in meel kaliya loo wada jahaysto. Kursigani waxa uu sheegay inuu ahaa mid door muhiima ka ciyaaraya arrimaha muddada dheer soo taagnaa ee dhanka saamiga iyo sida oo kale arrimaha u muuqanayay qadiyad ahaan inay qancin karaan dadka reer Awdal, balse aan xitaa la samaynin olole ka dhana arrinta. Xitaa aan loo ogolaanin musharax deegaanka ka soo jeeda in fursad iyo jaanis loo siiyo inuu sameeyo dhaqdhaqaaqyo rasmiya oo uu kaga gudbi karo caqabadaha iyo weliba marxaladaha uu ka waajihi karo doonistiisa iyo damaca. Kursigaas inay ahayd wuxuuba wax lagu soo koobay saacado kooban si aan warkooda iyo shushixdoodu meel adag u gaadhin, iyadoo qaab reeraysan loo soo dhigay bilowga horena. Tanina ay sii fogeynayso rajo kastoo laga qabay soo hagaagga sawirka guud ee Somalilan iyo humaaga ay bixinayso siyaasadda Somalilan. Xaalufsiga iyo xabsiga beesha dhexe ee kuraasta ugu sarreysa ee dalka ayuu ku tilmaamay inay tahay mid kale oo muujinaysa midaan si cad u qeexaynin wax wada la'aanta bulshada iyo sida oo kale midaan diyaar u ahayn in xal loo helo waxyaabaha la isku maandaafsan yahay siyaasad ahaan loo xallin karo. Saami ahaan aragtidu inta ay ku eg tahay jifo iyo in jifo loo xidho kuraas waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid u adeegaysa danaha cadowga Somalilan, fursadna siinaysa cid kasta oo doonisteedu tahay sidii Somalilan iyo bulshadeeda ay iskaga horkeeni lahaayeen. Saamiga reer Awdal ka maqanna waxa uu sheegay inuu yahay mid xaq ah oo loo baahan yahay in si degdeg ah looga fikiro loona helo. Waxa uu sheegay qalinka madaxweynaha laga soo bilaabo ilaa siyaasadda ku dhisan guud ahaan dastuurka Somalilan dhammaantood markan inay ku jiraan xaglin iyo weliba dhinacu xaglintaasina aanay marnaba qurux u ahayn gudaha Somalilan. Waa mas-uulkii ugu sarreeyay ee ka soo jeeday gobolka Awdal ee si cad uga hadla tan iyo doorashadii golaha guurtida. Waxaanu tilmaamay wixii goobta ka dhacay inaanay ahayn doorasho dimuqraadi ay ahayd doorasho reeraysan, weliba hadda ay sii dhaaftay reerkii iyo weliba ooshii dhexe ay markan u muuqato mid jifaysan oo jifo isku wareejinayso kursigii iyo mansabkii dawada oo ahaa siyaasadahan Somalilan.